Arsenal oo shaacisay xilliga uu garoomada dib ugu soo laaban doono Odegaard kadib dhaawacii soo gaaray kulankii West Ham. Website-ka rasmiga ah ee Arsenal ayaa xaqiijiyay in kabtanka kooxda Martin Odegaard uu dhaawac jilibka soo gaaray, taasoo sababtay in laga saaro liiska xulka qaranka Norway ee kulamada caalamiga ah ee soo socda. Warbixinta ayaa lagu sheegay in Odegaard uu dhaawac ka soo gaaray wareegga dhexe ee jilibka bidix intii lagu jiray qaybtii hore ee kulankii Premier League ee Sabtidii ay Arsenal la ciyaartay West Ham United. Kooxdu waxay tilmaamtay in ciyaaryahanka uu hoos joogi doono kormeerka iyo daryeelka dhaqaatiirta Arsenal ee xarunta tababarka si loo dedejiyo bogsashadiisa si uu garoomada dib ugu soo laabto sida ugu dhaqsiyaha badan. Ilo ku dhow kooxda ayaa shaaciyay in dhaawaca Odegaard uu qaadan karo ugu yaraan 1 bil. Arsenal ayaa rajaynaysa in kabtankooda uu si degdeg ah ugu soo laabto ciyaaraha maadaama uu muhiim u yahay kooxda dhinaca hogaaminta iyo sidoo kale hal-abuurka weerarka ee garoonka dhexdiisa. Dhinaca kale, Pep Guardiola oo mar kale isku qoray buugga taariikhda Premier League kadib guushii Brentford. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa taariikh cusub ka sameeyay Premier League kadib markii kooxdiisu ay 1-0 kaga adkaatay Brentford garoonka Tech Community Stadium Axadii. Guushaas ayaa ka dhigtay Guardiola tababaraha ugu dhaqsaha badan ee gaaray 250 guulood horyaalka Ingiriiska, isagoo sidaas sameeyay kadib 349 kulan oo uu maamulay kooxda City. Tababaraha reer Spain ayaa guushan taariikhiga ah ku gaaray bandhig adag oo ay kooxdiisu muujisay, taasoo City gaarsiisay kaalinta 5 iyagoo haysta 13 dhibcood 8 kulan kadib, isla markaana 4 dhibcood ka hooseeya hogaamiyaasha Arsenal. Guardiola wuxuu haystaa heerka guulaha 71.6%, taasoo ka sareysa halyeeyo caan ah sida Arsene Wenger iyo Sir Alex Ferguson, taasoo muujinaysa sida uu u xukumay horyaalka tan iyo markii uu yimid sanadii 2016. Weeraryahanka reer Norway Erling Haaland ayaa sii watay qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah, isagoo dhaliyay goolka guusha daqiiqadii 58, taasoo ka dhigtay inuu shabaqa taabto 9 kulan oo xiriir ah, 6 gool oo uu dhaliyay Norway iyo 10 gool oo uu dhaliyay kooxdiisa City. Door wanaagsan saaxiibayaal, warbixinadaasna waxay qayb ka ahaayeen barnaamijkeenii bandhigga ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabtan ugu xiran. Mahadsanid.